wareer adigu su'aashan ku weydiinay waxa weeye haddii aad madaxweyne farmaajo ahaan lahayd waad kalsoonida haysan lahayd maanta sidii berigii lagu doortay ummaddu ay codka u siisay amaba aad maanta joogi lahayd oo ay kalsoonidu marba marka dambaysan sii dhacayso arrimahan coronavirus iyo maamul goboleedadan qaar uu leeyahay oo aqoonsan yahay iyo qaar aan aqoonsanayn bale ee cakiranna ay kugu iman lahaayeen iyo dhibaatada diyaaradaha la soo ridayo waddanka haysata sidee baad arrimaha u xallin lahayd ama wadadee baad raaci lahayd adigu sidee baad u xallin lahayd adigu haddaad nin aniga su'aasha ay weydiisay oo aad leeyahay maxaad hadaad farmaajo noqon lahayd horta anigu waxaan samayn lahaa maan sameeyo saxaafadda kamaan dhunteen oo maan gabadeen oo maan farqu maan gabadeen ajiladna sidii Usaama Bilaadan ma soo duubeen saxaafadda oo dhan tan u yeedho oo war waxa su'aal qabtaan weydiiya ila waddanka waa isla aragnaa xaaladiisa waa qodobka koobaad talabaadna haddaan waxaan samayn lahaa ra'iisul wasaarahan ergi lahaa waan iska madaxweynaha waan yar gaadhay waxaan samayn lahaa inuu dadkan isku wadi lahaa ummaddan isu keeni lahaa gogashaan badin lahaa ra'iisul wasaare ummadda ka fikiraan keeni lahaa maan keeneen ra'iisul wasaare ka fikira tifiyada iyo kamaradaha iyo facebookyada ka fikireen ra'iisul wasaare ummadda ka fikira oo dhibaatooyinka iyo masiibooyinka ummadda haysta haday tahay daadadka iyo haday tahay fatahaada iyo haday tahay fakhriga iyo waxlaanta iyo haday tahay argagixisada iyo balaayada ayaan keeni lahaa dabeetana waxaan samayn lahaa maamul goboleedadana inkastoo qaarkood yar qafal xun yihiin haddana waan isku wadi lahaa waayo dadku dee lagama wada helo dad wada toosan oo saa wada toosan dee ma helaysid markaa waxaan odhan lahaa oo ummadda u sheegi lahaa wax kastoo soo kordha saxaafaddana waxaan odhan lahaa war weydiiyo waxa laala wixii ummaddu tabarsay ilaa saxaafaddu ummaddu waxay tabaysay su'aalaha ummaddu tabaysay bay dadku weydiisay war weydiiyaan odhan lahaa anaa uga jawaabi lahaa waxaan kaloo samayn lahaa ummaddu cadow bay leedahay Soomaalidu cadowga way isku raacsantay hal cadow inay leedahay cadowga Soomaalidu leedahay maan ku degdegeen la saaxiibistiisa iyo cararkiisa waayo dan badan oo igu jirta ma jirto xoogna iguma muuqoonin karaan Soomaalidu marka isagana waan ka feejignaa inaan dabinkooda galo hadda ya dan baa timi oo adigu taasi waa taageeradii aad weydiisay markaan taageerada haystay aad weydiisay adigu tiniyo mid baa tahay warkiisu dheer yahay adigu hadaad taageeradii haysan lahayd taasi seegta hadda ya dan baa timi hadday halkan oo kale ila marayso oo arrimi musuqmaasuqa soo baxayaan waxa lagu yar xun yihiin horta 2 sano ku darsan lahaa hadal ma lahayd baarlamaanka mar hadduu gacanta igu jiro intuu gacanta igu jiro baan fadhiisan lahaa 2 sano ku darsan lahaa wasiirada miyaa wasiirka hadal aan la isla hubin iska sheega oo dadka nagu soo jeediya judhiba xilka ka qaadi lahaa xilkan judhiba ka qaadi lahaa waxaan kaloo samayn lahaa 2 sano ee dambe waari maysid oo ka hadhan ka dhigi lahaa waari maysid waxa ka hadha ummadda isu keenisteeda caafimaadka ka shaqaysiintiisa baahiyaha ummadda runta abaan mitil lahaa waxaan ka ummadda u bislayn lahaa inay ciidamada shisheeye iyo ajnabiga ka maaranto oo ay bal ummaddu inay fikirto inay waddanka iyagu leeyihiin oo ay ummaddu bal fikirto maskaxda ummaddu inay ka shaqayso oo ay ummaddu ku xisaabtanto war boqolaalkan kun ee xabashida ay dul tuban iyo boqolaalkan kun ee hadii lahayd ka dhigayo ajnabiga kala ah Ugandiska iyo Amazon ka mid tahay 20 kun Amazon iyo Mareykanka iyo ciidamada shisheeye fara badan ayaan ka fikirsiin ummadda sidoo 2 sano taariikh baan kaga tagi lahaa 2 sano inta ku dhufsado ayaan taariikh kaga tagi lahaa way 4 sano hore waa yar boodboode aad iyo aad baan idin salaamayaa waa hadal badantiin